cunto iyo emergency fund finance ay hayso iyo raashinka xoolaha iyo water tracking kaliya waxaan ugu tiragalnay 564 milyan oo shilin 564 milyan oo shilin sanadkan hore laga aan rabna in shidaal lagu bixiyo allowance ka darawaliinta lagu bixiyo raashin lagu soo gado waa laaga ayaga meeshida laga keenaya waxaan gelinay budgetkayna 160 milyan oo shilin oo baasari ah oo loogu tirigalay in dadka aan bixin karin school fees aan kaga bixino ama secondary hata ama college hata mar 150 milyan shilin ay county bixisay baasari male inta ugu badnad oo la bixiyo waxa way sanadkii aniga ugu dambeysay 100 milyan ah shantii sano waxa la bixiyo dugsiyoontii inaan ku noqdo marrab laakiin 150 milyan waxa kale oo budgetka gelinay 200 milyan oo isku dayayna inaan 100 milyan kale aan ku darno oon rabno in aan siina gabdhaha iyo dhalinyarta inay ku shaqeystaan 200 milyan shillings oon rabno lacagtaasi December ka hor kulli in la wada bixiyo insha Allah taala marka dadkii way tacaabaysan yihiin waxaan rabnaa inay lacag gaarto in raashin uu gaaro in biyo ay gaaraan oo noloshooda waxa ka dareema waxaan aad ugu dardaaranay in aan la hilmaamin maatada magaaladan ku nool in dadka laga tira badan yahay waxba aan haysan ayagana oo raashinka markuu imaado ayagana qayb laga siiyo waxaan miisaaniyada ku darnay 40 milyan shilin oo rabna in aan ku gargaarno dadka curyaaminta insha Allah taala oo qoysaska dadka carruurta curyaaminta haystaan oo siin jirnay lacagaha dugsoontiin bil walba la gaarsiiyo lacag 4500 bidlaal karin lana badiyo inta qof oo ka faa'iideysan marka waxaan sugaynay kali oo waqti nagu qaadatay waa dugsoontiin isbedelaad marka jirto dawladda wasiir cusub in la magacaabo way chief officer cusub in la magacaabo way waa in la sameeyo miisaaniyad hada assemblyga ay la taala waxaynu ballan qaadeen khamiistii meesha lagu gaara in ay marin doonaan insha Allah taala nana fasixi doonaan in lacagahani dadka ay gaaraan insha Allah taala istaalihi wixii ka bilowda khamiistan lacagahaasi oo u yeelan inay ku bixiyaan daawooyin toddobaadka soo socda meesha lagu gaaro waxaan qaybaynaa insha Allah taala in ay jiri doonin istaal aan daawo ay oolin in shaybaarkaasi regional laboratory la furo oo qof aan la dhihin ka soo sameey baaritaankan farmasiya ka soo sameey oo private aan la dhihin. I was very much encouraged by the meeting this morning with all the stakeholders as we find ourselves in a very precarious situation once again dealing with drought and all the troubles it comes with. Our people are suffering lack of water, lack of pasture for their livestock, with animals getting weaker and weaker. We agreed with all the stakeholders who are gathered in this room behind me today, led by the Governor and the County Commissioner, that we're not going to allow our people to suffer like they've done in the past. And especially the last drought, which we saw huge and wanton deaths of livestock numbers and also people also facing all the suffering that we saw they suffered. This time round, I am very much encouraged to say that we are ready. The county government is doing its bit, the national government is doing its bit, our development and aid partners are doing their bit, and together we will be able to alleviate most of the suffering of the people. I would like to thank the county governor, His Excellency Ahmed Abdullahi, for his magnanimity in choosing to rejig his little budget to ensure that some of it is reserved
to supplementing whatever efforts we've been getting from the national government. The food we've so far received from the national government has been very little. It has helped, yes, but it's been very little. We're expecting more. The governor is ready to add his bit. The other aid agencies who were gathered here today are also adding whatever contribution they can, and that way we are going to help our people not suffer as much as they have done in the past. In my constituency, Wajir South, we have a huge population of people coming from different parts, some of them from Garissa, some of them from other parts of Wajir. We have some coming from as far as Mandera. And this is exerting a lot of pressure on the existing boreholes because most of the dams and the water ponds have dried up, and there are frequent breakages. And I'm sure the governor and his team are willing and happy to deal with that whenever it happens and in the swiftest way possible. I must say I was really encouraged by the meeting we had, and I would like to tell the people that the issues are being thought about, and very soon they will see action on the ground in terms of relief and helping them deal with the vagaries of nature.